taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu u cadeynayaa bulshada Soomaaliyeed galabta abaaro 12ka galabnimo in ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu gudanayo waajibkiisa shaqo oo taagan bar control ay soo weerareen koox maleeshiyada oo u abaabulin qaab liddi ku ah nabadgelyada ummadda Soomaaliyeed حبداسي يسا كعيرمانين السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سورة صاحبي هلكن ورباينتا مدح بنان هايتين waxaan soo gaadhay hadii yaa mid guud ahaan baan wadaagi jiray tabinteena iyo baahinteena cawishnimo soo saaxiib qodobada habeenkan caawa barnaamijkeena aan ku soo qaadan doono waxa kamid ah magaalada Muqdisho oo dagaal culus ka bilaabmay iyo khasaare laga soo sheegay xilli aan la gaarin waa barigii loo baransanaa mudaharaad magaalada Hargeysa wafdi caalami ah ayaa soo gaaray dalka Djibouti boolisku waxay xabsiga u taxaabeen nin arrin yaab leh ku kacay maxay tahay arrinta ninkaasi u sameeyay qodobadan iyo kuwa kale ayaan barnaamijkan saaxiibayaal ku korxaalin doona hadii la ka dhigay soo dhawaada marka hore fadlan hadaad cusubta nagu soo biir hadda hore noo joogtana muuqaalka meel dheer gaarsiinta inta ka horeysa fadlan aan ka qayb qaadana barnaamijka tabarucaadka masjidka Badweyn Al Nuur waxaynu muddadii ku dambeeyay halka ku daadiinay in kana meel wanaagsan maraya fadlan ka qayb qaata oo xagga rabbi aan wax u dhigan kadib aan soo laaban hadda la ka dhigo مساجد سليمان برابشة اللي ويا ومسجد النور بدوين ويا ولا ريال ولا ركتان وحن سوق الدنيا في صدح كنا دورر بوها قلب بانصوص سنة الدنيا صوص سنة ويا له هل كسر مرة يا حد يرتوح وهينا لك عنتم وهينا ما شفته في هذه السنة هذا بلا مس جوال وحنا هلا صغير قط هلا صاع عويه سفي عن هلا صغير قلو ما شاء الله ولا ريال يعني وحي له لو تسيد بتويه وحي مساجد لك شيء وحي له لو تسيد بتويه وحي له ما صدق وصدقة شارية ويا وعمل كان قائم ويا في آخر أنفع يقف حتى ميتات ذكر عندك حقوق محسنين هدرتو ذكر وقف على واحد وقول عكس بدنا هذا أنت سوق قاعد تد والد كل حد قريب هاي إلى هنا كاترسي ساعة سوق له هلا سوق قريب قاتوا ريال أنا والله لسه مساعد كاس وحوي مسجد النور بدوين تلصم يو تسم تلبا وحاجة صباحية مسجد النور بدوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتساب يا قبهان هل كاسنا ka soo xirso wala sidii aan soo xiri jirteen waana ku mahadsantii Allah يبارك الله يباركي الله يباركي حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waayo magaalada Muqdisho waxa ka bilaabay dagaal culus oo u dhaxeeya xubnaha mucaaradka oo hogaaminayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo waliba sidoo kale Xasan Sheekh Maxamed dagaalka waxa lagu soo sheegayaa khasaare kala duwan oo soo kala gaaray labada dhinac dhismayaal dumay baabuur la gubay iyo xaalado waaweyn ee magaalada Muqdisho laga soo sheegay xilli maalinta berrito loo ballansanaa in magaaladaas mudaharaad ka dhaco oo qolada mucaaradku ay dhigayeen halka xukuumadda arrintaas ay uga tukatay Xasan Sheekh Maxamed oo muddadiisu dhamaatay ayaa galabta waxa uu weeraray guriga uu degan yahay Xasan Cali Khayr halkaas oo ay ku sugnaayeen wafti ergan nabadeed ah oo beesha muruursada iyo xildhibaano ah oo Xasan Cali Khayr wada xaajood la waday isla markaana xagga xukuumadda ka socday sidoo kale goobo kale ayaa wax ka dhacay xubnaha mucaaradka uu hogaaminayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa la soo baxay hub waaweyn oo markii hore aan laga filayn inay gacanta ku haystaan maalmihii u dambeeyay waxay barta ku soo dhoobayeen ciidamo hadaba xukuumadda iyo waliba sidoo kale xigleedo dhamaad Xasan Sheekh Maxamuud afayeenka booliska oo hadlay waxa uu sheegay xubnaha mucaaradku inay iyagu weerar ay lahaayeen halka mucaaradka oo uu Khayr uu hadlayna uu sheegay in la soo weeraray weerarka wixii ka dhashay xukuumaddu ay qaadanayso Xasan Sheekh Maxamuud ma waxa uu tijaabinayay wadadii Mikilooje Farmaajo kala hore hadda oo kale gurufkan mucaarad oo hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu qaaday madaxweynihii Xasan Sheekh Maxamuud ee xilliga talada dalka isagu hayay laakiin Xasan Sheekh Maxamuud markuu arkay in dagaal Mikilooje Farmaajo ayaan ka wada hilmaan hadalku ma jiray markii uu arkay in dagaal dhacayo dagaalamo huraan uu yahay waxa uu guud ahaanba ka tanaasulay isla markaana uu faraha ka qaaday taladii dalkii uu hayay waxa uu qaaday dhabadii mucaaradka haddaba Xasan Sheekh Maxamuud 4 sano kadib iskooyiskii Farmaajo ayuu taagay ولو برجع فرماتش ويحتاج معارضة ويري عبد الشكور عبد الرحمن حكمت صاري ويشتاف كيسي لاي حدنا وحبوك جد وانا حاسس الشيخ محمود كمان تدرس الرحمن ودبينا وكتر الرناضي وضل كانوا طقال قالوا ويحو وصول يسوي بربرية وكتنا سوى الله سوى نقط دبي ترى فرماتش وكتنا سولي وحنا الطلادي تلك كوب جلستي حاسس الشيخ محمد أفر سنة كدي بيش ليسكويسكي أي مجال مقدوشة تاجت حاجة بالله يا بلا بلا نقطة حوالها إسلبرتي أي تاجت isla gulufka nimankii berigii hogaaminayay Xasan Cali Khayr Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur Sheekh Shariif Sheekh Axmed isla teenkii ayay imka hogaaminayay xasanna wuxuu taagan yahay halkii Farmaajo waxaana uu ku dadaalay in xubnaha mucaaradka gacanta ku dhigo
galabta waxa isku dayeen weerarka ciidamada soo qaaday inay Xasan Cali Qayrre sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay gacanta ku dhigaan hase yeeshee qolada mucaaradka oo aad u diyaar garoobay ayaanay arrintaasi u suurta gelin in gacanta ay ku dhigaan magaalada Muqdisho Britola ayaa la ballan isla caawa ayaa dagaal xooggan ka dhacay khasaare badan baa dhashay guryo badan baa burburay dadka shacabka ayaa iyaguna bilaabay inay guud ahaanba ka maata baxaan ama ay ka qaxaan magaalada Muqdisho iyaguna waxay bilaabeen inay ka qaxaan goobaha lagu dagaalamay maaha magaalada Muqdisho qaybo badan oo ammaan ah jira goobaha lagu dagaalamay waxay ka bilaabeen inay ka qaxaan bay bilaabeen xagee u qaxayeen meelaha aan mucaaradka iyo dawladda isku warfadhiyin ay filayaan inay gabood naftooda ay kula baxsan ay ka helayeen maxaa dhacaya waa bari maxaa la filayaa iyadoo aan la gaarin xilligii la ballamay iyadoo wada hadalladu dhammaan soo burbureen iyadoo goor horeba rasaastu bilaabantay iyadoo labada dhinac ay ciidamo soo urursadeen Muqdisho maxay martigeli doontaa waagu markuu bariyo barito xasan sheekh maxamuud batana asri doona sidii farmaajo oo talada dalka faraha ma uga qaadi doonaa mucaaradku siday doonayaan miiska wada hadalka ma ku soo laaban doonaa waa goor horeba dhiig ayaa daatay Muqdisho Britoole ma dhiig inta ka badan ayaa daadan doona maxaa dhacaya maxaa soo socda way faaliis ay muuqdaan maxaa hadaba farmaajo uu kaga duway xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo waxay ku kala duwan yihiin kow farmaajo nin daarooda buu ahaa markaa challenge wuxuu ka hawiyo oo dhinac wada maray iyo daaroodkii oo dhinac wada jooga oo waliba qaar kamid ay la socdeen xasan sheekh maxamuud hadda maxay si kaga duwatay hadda qolada daaroodka ee Axmed Madoobe iyo danay u badan daaha dabadiisa ayaa hawsha ka maamulayaan waana daawanaya hawiya isku samarsaday waa muruursade waa abgaal iyo habar gidir intaas kale hogaaminaysa Muqdisho sagaashanaadkii sidoo kale waxay isku farasaaray ee ay u burburtay ee ah waxa ay General Caydiid iyo ninkii loo jeeday Cali Mahdi talahawi ay ahayd 30 sano kadib ama 30 sano kadib 40 sano kadib markale Muqdisho magacan hawiye iyo isqabsi hawiye ay ku burburi doonto dhammaan su'aalahan aan isweydiinay waxa ka jawaabi doona marka waagu bariyo sida ay wax u dhacaan ka hor dhicimayno laakiin caawa khasaare ayaa jira sidoo kale gaaray labada dhinac guryahooda ku dhicin ayaa jira dad shacab magaalada ka qaxay ayaa jira bulshada kale ayaa warwar soo food saaray goobo kala duwan baa la isku hor fadhiyaa ciidamo kala duwan baa la diyaarsaday hub kala duwan baa la soo baxay Muqdisho muxuu waagu ugu bari doonaa intaan ka soo noqon Soomaaliland waxa soo gaaray wafdi ka socda dalka Mareykanka oo hogaaminayay safir ku-xigeenka arrimaha Soomaaliya mar u qaabilsan Mareykanka iga safir ku-xigeenka maadaama Soomaaliland aan qaabilsanay wafdigan waxa uu daba socdaa wafdi ballaaran oo military ah oo darraatoole ilaa shalay darraatoole soo gaaray Soomaaliland wafdigaas oo Soomaaliland ay soo gaareen berbera booqday khubaro military bay hayeen arrimaha heshiisyada diblomaasiyadeed ee militariga u badan ayaa loo filayay in xukuumadda ka wada hadleen xilli shalay toolay dawladda Mareykanka soo saartay warqad ay ku kala saarayso Soomaaliland iyo Soomaaliya isla maanta Soomaaliland waxa soo gaaray safir ku-xigeenka ama ninka wax weeye Soomaaliya u qaabilsan iyo Soomaaliland dalka Mareykanka safir ku-xigeenka wafdigan heerkiisu sareeya madaxweynaha la kulmay waxaanay kala hadleen dhinacyada iskaashiga amniga horumarka iyo iskaashiga labada dal arrintan waxay u muuqataa ama ay u eegtay in wafdigan hordhac u yahay talaabooyin waaweyn oo muhiim ah oo la filayo Mareykanku inuu dhinaca Soomaaliland soo qaado dhawaan waxa uu sheegay dalka Mareykanka warqad uu soo saaray in Soomaaliland ay ula shaqeynayaan si ka duwan ama Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ula kala shaqeynayaan siyaabo kala duwan iyadoo qolo walba ay si toos ah ula shaqeynayaan xilli dawladda Soomaaliya ay ku faraxsanayd warqadda oo ay ku qoray in Mareykanku aaminsan yahay in ruweynaha Soomaaliya uu mid yahay haddana wafdiga maanta yimi iyo qoraalka warqadda ku qoraaya qolo walba sideeda ayaan ula shaqeynaynaa wafdigii khibrada military ee ka horreeyay wafdiga diblomaasiyadeed safir ku-xigeenka hogaaminayo dhammaan waxay muujinayaan dhacdooyinkii kor u kaca iyo waxa weeye xiriirka Soomaaliland iyo Mareykanka inuu sanadihii u dambeeyay sare u sii kacayo isla markaana ay suurtagal tahay in Soomaaliland Mareykanku sida warqadda ku xusana isu toos oo la macaamilo gaar ahaan dhinaca diblomaasiyadda amniga iyo arrimaha la xiriira iskaashiga ganacsiga ayaa ku qoraa maanta wafdigan yimi ee safir ku-xigeenka hogaaminayo waxay ka marakacaysaa in Mareykanku uu ka dhabeeyay ballanqaadkiisa hay'adda Soomaaliland si toos oo la shaqeeyo waayahay dalka Djibouti booliska dalka Djibouti waxay xabsiga u taxaabay nin arrin la yaab la ku kacay ama fal yaab la ku kacay ninkan ayaa baraha bulshada qabsay sidoo hooyadii khamri waraabinaya subhanallah hadaba maalmihii u dambeeyay ninkan ayaa baraha bulshada haystay xilli hooyadii uu siinay khamri hooyadii daa si qoriisu nin yar maaha booliska dalka Djibouti ayaa waxay sheegeen ninka xabsi ay ku hubsadeen
isla markaana xabsiga ay u taxaabeen dhacdadan marka laga tago xariga ninka iyo falka foosha xun uu sameeyay waxaan ka baran karnaa dhacdadan waxaan ka baran karnaa kow waalidka haddii ilmaha aanu u barbaarin si wanaagsan oo akhlaaq leh oo diin leh isla markaana aanu ku barbaarin waajibaadka Ilaahay saaray inuu kala kulmayo cawaaqib fool xumo iyo ciqaabaad inta dunida guudkeeda saaray hooyada dhaliili mayno laakiin waxaan sheegaynaa ubadku nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kullukum mas'uulun wa kullukum mas'uulun can raaciyati dhammaantiin waxaad tihiin mas'uul qof walbana wuxuu mas'uul ka yahay raaciyadda raaciyaddaas waxaa ka mid ah ubadkii maxaad bartay xaggaad ku ogeyd qaabkeed u barbaarisay dhammaan mas'uuliyadda ubadku waxay ka muuqataa qaabka loo barbaariyo qofka ayay ka muuqataa ninkan waxaa muuqda ama waalidka aabbo haddayo ama hooyada haddayo inuu yahay qof waalidka kaaro aan khayr aan qabin marka koowaad hooyadii khabar u siiyey marka labaadna baraha bulshada ayuu ku baahay inta uu na tusay waa inta muuqatee inta inaga qarsoon tiro maxaa dhaca laga yaabo dhowr waqti ee maalintii inuu garaaco hooyadii dilo u gacan qaado inay nolol sariic la ku nooshahay way muuqataa in xaalad duruuf dushada ka muuqato marka waxaan ka faa'iideysanaa muuqaalkan ama dhacdadan aan ka faa'iideyn in ubadka si wanaagsan loo barbaariyo si if iyo aakhira labada daarood ay ku anfacaan si labada daarood marka dhibaatana ay kugu soo duceeyeen intaad nooshahay si fiican kugu hayaan waxa ka horeysa inaad si wacan u barbaariso oo si wacan aad u koriso oo si wacan wax weyn dhaqankooda iyo akhlaaqda iyo qiyamkooda aad si wanaagsan u dhisto dhacdadan dalka Djibouti ka dhacday maalmihii u dambeeyay waxa dhacdo baraha bulshada si weyn looga maadsaday isla markaana si weyn baraha bulshada loogu baahiyay si weyn baraha bulshada loogu hadalhayay si weyn baraha bulshada loogu qaada dhigay dadkuna waxa weeyay siyaabo kala duwan uga falcelinayay dadka qaar waxay moodayeen majaajilo qaarna waxay moodayeen dhacdadan dhacdo nin waxa weeyay qof baraanki sameynaya ama waxyaabo noocaas laakiin dhacdadan dhacdo dhaba ayay ahayd dadka badankood ma garan ka Djibouti ka dhacday ugu dambeynna maanta ayaa xabsiga ninka ciidanka booliska dalka Djibouti ay u taxaayeen saaxiibayaal guud ahaan boqormadeena caawa intaas ayaa ku soo gabagabeyn doona wixii warar ka soo kordhay magaalada Muqdisho oo xaaladeeda ay xun tahay isla markaana dagaalo aan la isu yareysan ay ka holcayaan haddii ay wax ka soo kordhaan qormadeena labaad ayaan ku soo qaadan doonaa isma dhaafna tan idin kulantay salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala dhammaan waxaan salaamayna ummadda muxsiniinta ah ee ku kala sugan daafaha adduunka maanta waxaan ku suganahay miyiga deegaanka Badweyn gaar ahaan halkii aynu ka wadnay masjidka ee muddooyinka ku dambeeyay la soo wadaagay walaalayaal maanta masaajidku waa kan haddii la ka dhigo dumin baa lagu sameeyey wixii ay soo gaarsiiseen hadday tahay deeq agaba iyo hadday tahay deeq adduunba waxaan idin sheegaynaa ammaanadii dhammaan masaajidka aynu soo gaadhay بإذن الله تعالى سوى قروح بدنا عاد وحوي أن يوسف قد بنترو لما يستري بدونه ما أنت واسوا جالسين يا وحوي أن تسوي قبصامي يا مساجد كأجا بكيسيو ياله يا إن لتميي أنت سوى أنت ولماذا نور بحب نسيتهم عد كستاوي هاي سوى جالسين مساجد بإذن الله تعالى وسوى جال وحندوي نور على يال مرة بعدين مصلحة حاضر إن نقول كنت الناس يدين كانوا يسمى لهم مساجد قروح بدنا مساجد كان أنا دوميني إسناين عندما ما يشترونه أجاب كأس وجار سوايا لا حد يلا كرجو أنتي إنك بدنا بوابة هاي هل بدنا بندوري ولا يا باص تنا ذاك كذا يا والدك باص وكذا يا دنيا والدك إنه قبره كوب بعضه يا دنيا والدك إنه قبره هو يفتيميه يا دنيا إنه نرش يسميل وأنا أسمع حسيرته يا دنيا عافمات حطوا كعبان يعوض يا دنيا السمية وناك أنت صور على الواحد كنت مساجد كان وعندنا هذا ما يسترتان ضد محسنينه أو كمان بقول قيس ودجان كنت دجن أيوة مساجد ويه جمع ويه سناد اللي جوه هو كواحد لوجو برا صدقة الجارية ويه إلهي واحد كبر ينا قف كستوك قيب غاتي إنه إلهي نوش تقبيله كساره إلهي واحد كبر ينا كيف تيمي إلهي نوش يسيف تيميو إلهي واحد كبر ينا كي واحد قدر صدي إلهي واقبله إلهي واحد كبر ينا إلهي بدأ فقديه كوي هروا قيب غاتي كوي عيب كنا سوى جارسي إلهي وكوي متى قيب غاته إلهي نوش تقبيله كسار إلهي نوش ويفتيمي إلهي كوا نرد ما يستري يكون الله بلا بابا إلهي نوش وح كستو أي دونيان إلهي وقبه إلهي واحد مرخاتي هذانا إن أي سوى جرمدين وأي باقي يك جوابين إلهي يو باقي يك جوابته أيام حاجة برينا ولا لي المساج هو بلا ما يا وحبلا ما يا قيبه جوات كا بلوجاها هدي قيبه هراء سوى جارسيسن يمكن قيب تقوم مهم سنة يا بلا ما يصح دي على كده
halkan waa jaajuurkii masaajidka waa kan waa daawo doona haddii alla ka dhigo qaabkan ayuu yahay waxaan u baahanay walaalayaal markaas mar labaad inaan gamcays qabsano gurmadno beydkii ilaahay aan dhisno walaalaheenan muslimiinta ah inaan beydkan la qurxino qof kasta wixii uu gashaday ilaahay subxaanahu wa tacaala dayici maayo in allaha laa yudiicu ajra camala almuxsiniin waa kaloo waa dumay habayn baan ku samaynaynaa guud ahaan gacantaanu saar qof kasta wax la soo baxay waanu soo gaarsiinay walaalayaal annagu codka soo gaarsiintaanu leenahay idinkuna cuudkiiyo maalkaa leedihiin inaad ka qayb qaadataan baan rajeynaa insha allah warkaygaas markuu idin soo gaadho waxaad kaga qayb qaadan kartaa adduun waxaad kaga qayb qaadan kartaa agab waxaad kaga qayb qaadan kartaa haddii alla idinkeeda leeyahay duco waxaad kaga qayb qaadan kartaa muuqaalka sheer garayso